بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي الميل والبوجوكتين وإذن سلام يا وإذن كعذر دارنا رمضان قبل ويسنا إنا مغناي وإذن كم مشغولة وحرجينا قفل بينو في عني هاي إلهي هنا لو ذجر إلهي أنا أقبله عبادة دينا ما أنتوا حاربينا وحيار كسو عليا صوصفة فحسن وشيغو سايكولوجي مادام دور مرة وحياب سايكولوجي كسابسان أما حنون النفسي أكاد هادلي أما هرو هاي كورس سايكولوجي كسابسان بلابايا وجعل إن شاء الله كورس إن سو بندقو oo badan laakiin maanta introduction aad u balaaran ama hordhac aad u balaaran waxa ka qaadanayna maadadan psychology markii la dhahaayna aad u baaxad weyn yahay yani xanuuna soo galaayo la dhaqanka dadka soo galaayo isfahamka nafsadaada soo galayso nolosha naftirkeeda saa u fahmileeda soo galayso aad u baaxad weyn yahay wax la dhihi kara ma ahan hadda maanta hal dhinaca loo raacaya that's why uu taqasusyo badan yahay la talinta soo galayso fahamka dadka kala soo galaa dhibkood inaad fahamtid marka waxay noqonaysaa psychology markii la dhaho in aanan loo fiirinin kaliya qof waalan ama bariyahan ani waxa meesha ka sheego media oo xanuuno kaliya inoo noqdo yani wax badan hoos galay tusaale ahaan yani sida wanaagsan dadka ula dhaqmaysid wanaaga dadka ula dhaqmaysid maxaa wanaag fidin kartaa adiga naftirkaaga si isku wanaajin kartaa ixtiraamka soo galayo waxa kale soo galayo nolosha si u socota saa u fahmaysid sababtoo hadaadan nolosha si u socota aadan fahmin inkastoo qadar aaminsanaha alxamdulilah ilaahay jiritaankiisa waa aaminsanaha alxamdulilah ilaahay jannada hanu kulmiyo bad waxaa jiro qaab loo fahmo nolosha si u socoto iyo si u dhacayso markasta markaa fahamtid qof ahaan waxaa kuu fududaanayso dhibaatooyinka ka hor imaanaya inaad ka boodi kartid ama aad ka tilaabsan kartid hadda ka hor tariin aan soo qabtay oo ku saabsanay farshaxanka fahamka nolosha waxyaabo badan oo aan rabay inaan dadka ka fahamsiiyo waxay ahayd dhibaatooyinka nolosha ka imaanayo waliba si kooban ahayd si faahfaahsan ahayn dhibaatooyinka nolosha ka imaanayo see loo handal gareyn karaa see loo la tacaali karaa see loogu noolaan karaa ama looga gudbi karaa adigoo nafsi ahaan aysan waxba kuu reebin marka waxyaabaha kale toole oo rabo in ka cadeeyo psychology-ga isaga naftirkiisa waxay tahay sidee qofka uga fogaan karaa negative thoughts waxaa jiro waxyaabo badan oo qofka ku abuuri karo inuu wax qaldan maanta dhan maskaxdiisa ay u sheegto ama ha ahaato inay uga sheegayso dhanka bulshada iyo dhanka say wax u socdaan ama ha ahaato inay uga sheegayso dhanka muuqiisa iyo asaga shakhsiyadiisa iyo wuxuu qaban karo iyo wuxuusan qaban karin iyo soo adduunka uu la tacaamuli karo in naftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu xaliyo psychology ahaan sababtoo waxaa jira dad badan oo la daala dhacayo ama la dhiban ama meelay ka bilaabaan la fikradahan qaldan oo maskaxdooda kusoo laalaabanayo sababta qofka bini'aadamka maanta dhan maskaxdiisa way shaqaynaya way fikiree mustaqbalna waa ka fikiree wax hortaada jiro wixii la soo dhaafan xasuustaada way ku jirtaa marka wixii la soo dhaafan shalay iyo negative uu arkaa waxa soo socdane cabsi iyo negative uu arkaa marka maanta dhan wuxuu ku dhex nool yahay xaalad qalqal iyada naftirkeeda waxyaabaha uu psychology-ga xaliyo ama soo hoos galayo ay ku jirtaa maanta dhan waa socotaa waa shaqaynaysaa hamiya leedahay bini'aadan aad tahay marka qaabkee maskaxdu u fikirayso waxyaabaha ugu badan oo qaldami karo ee noqonaysa iyadana waxay soo hoosgalaysaa psychology waxaa kaloo jirto ixtiraamka boos weyn oo nolosha uga jira oo bini'aadanka yani door weyn oo ku leeyahay shakhsiyadda ama nolosha adiga aad nooshahay maanta waxaa rabnaa qof walba wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo in position weyn la geeyo in si fiican loola dhaqmo laakiin intaasna inaad samaysid waxaa ka horeyso heshid waxaa ka horeyso adiga maxaa ixtiraam bixin kartaa like adiga nafsadaada ko maxaa ixtiraam siin kartaa qof kastoo kugu hareereysan maxaa ixtiraam siin kartaa inaa qof wax ixtiraamaad tahayna waxyaabaha ugu horeeya kugu cadeynaya waxay tahay yani dadka adiga ku hoos imaanayo qaabka u ixtiraamaysid not adiga dadka kaa sareeyo qaabka u ixtiraamaysid yani ina adiga wax ixtiraamaysid nafsiyan waxaa ku xaqiiqsan kartaa ama ku ogaan kartaa maxaa dhinacaaga taagan oo xoogaa ama da ahaan ama baawar ahaan ama lacag ahaan ama aqoon ahaan oo position ilaahay kaaga sarmariyay saa ula dhaqmaysid dadka markaas hareerahaaga taagan yani hadalka aad ka ilaalinaysid saa ugu dhowl cadaynaysid waxaad siinaysid saa ugu cudur daadanaysid saa u sharfaysid iyada naftirkeeda waxay ka mid tahay ixtiraamkaas markaad bixisid yani adigaa helaysid adigaa uhelaysid dib ahaan uhelaysid marka ixtiraamka nolosha ama ixtiraamka oo qofka is ixtiraamayo ama dadka ixtiraamayo iyadana waxyaabo badan oo waxa soo hoosgalayo oo psychology ahaan sababtoo
isfahamka nafsada adiga isfahmaysid, it's kind of psychology. marka ixtiraamka aad bixinaysidna adiga kugu xiran tahay, nafsadaada ku xiran tahay. saas daraadeed yani ixtiraamka mar walba wuxuu aad u soo hoosgalayaa psychology-ga. wax la barto waaye, wax la fahmo waaye. dhowr maraan mar hore idin dhahay yani waxaan waa aqaanaa, it is easy, wax fudud waaye waxaan inaa aqoonsatid ama aa fahmid. laakiin inaa waxaan taqaanid dhib ma laha, laakiin inaa fahamsan tahay waa wax mar walbo u baahan tarkiiska ama in la raadsado. ixtiraam maanta haddii loo qof walba definition waa u samayn karaa, laakiin inuu fahmo qiimaha uu leeyahay, waxa uu yahay, qaabka uu ixtiraamayo dadka, yoo ixtiraama. maanta haddaadan ixtiraami karin cunug 5 sano 6 sano jiro oo bini'aadanimadiisa, insaannimadiisa iyo jiritaankiisa aadan ku ixtiraami karin, waxay keenaysaa malahan qof ka baaw, qof ka weyn, yani qof oo wax aad ka sugaysid ixtiraamka aad ixtiraamaysid, yani nafsadaada xataa makuu kamilno. waxaa kale jiro point kale oo isfahamka naftirkiisa oo qofka asaga isfahmayo. ma xanuunsan tahay, ma daashay, waxa inaa iska dhaaftid ma rabtaa, baryahan waxa ka qaldan, say ku fahmi kartaa wax ka qaldan. pointkaas hadda sheegoyn wax badanaa lagu soo saaro ama qofka kuwa caawin karo waxay tahay qofka psychologist ama counseling ah. marmana waxaa jirta saa u socotid u shaqaynaysid way kaas u istaagay mataqaan meel laga hayo caajisaa bilaabanayo. wixii entertainment u arkaysay inaa ka yar niyad jabtida ku bilaabanayso, dhaxgalkii bulshada aa u qabtay inaa kasoo niyad jabtida ku bilaabanayso. iyada naftirkeeda waxay ka mid tahay marka yani xanuun nafsina ma la dhihi karo, laakiin haddana waxay ka mid tahay psychology-ga soo hoosgelaysaa ama cilmi nafsiga soo hoosgelaysaa. inaa yani qofka nafsadiisa is ogaado, goormoo daalay, waxyaabo waxaa jira la dhahayo burnout. waxaa la marka qofka bini'aadanka oo meel toos ugu mashquulsan yahay, ama hooyo ilmo korinaysa ha ahaado, ama aabbe la soo daalo dhacayo inuu ilmihiisa biilkiisa usoo dhici ha ahaado, ama qof waxbarasho ku mashquulsan, ama qof shaqo xoogan hayo, ama qof routine shaqo ku jiro. routine waxaa waaye wax oo maalin kasta isku meeshii aa maraysid, isku wixii aa samaynaysid. marka iyada naftirkeeda burnout waxa la dhahayaa marka dambe imaanayo oo nafsadii qalaas way soo istaagaysaa, hamigii iyo farxaddii iyo waxyaabo badan kaa xirmaayo. waxay noqonaysaa marka qalaas caag camal inaa noqotid, markaas dabeecadda inay kaa dhunto ama inay caajis low aa noqotid ama caajis lee aa noqotid. labadaas mid ay kuu dhalinay burnout-ka, ama dabeecadii kaa dhumayso ama horu socodkii iyo wixii dhan aa rabtay tartiib ay kaa daciifayaan. taas micnaheedana maaha inuu depression yahay, laakiin burnout aa la dhahaa waxaa ka daashay waxay tahay ma la ogo. marmar waxaa laga yaabaa barbaleemo inay nolosha ku imaadaan, saa uga fakeraysid barbaleemkan see u xalisaa, meel ugu fadhiisanaysid in psychological problem ay kula gasho. iidan waxyaabo dhici karo waa oo psychology ahaan dhici karo, markaas bini aadan aan nahay. waxaa jirto waxyaabo la dhahay problem solving oo dadka ay ku kala gedisan yihiin. dhib markuu dhaco qofka bini aadanka qof walba wuxuu u xaliyaa qaab u gooni ah. qaabka u gooni ah u xalinaysidna waxay ku xiran tahay adiga qaabka u fahamtay. yani barbaleemkan soo yahay oo adiga aa u fahamtay maskax ahaan saa u aragtay, qaabkaas qaab la xiriira u xalinay. yani waxaa laga yaabaa barbaleem maanta qof ku weyn oo waqti ku qaadanayso inuu xaliyo oo ku fikirayo, qof kalena inay barbaleem leeyahay, qof kalena inay barbaleem la tahay laakiin oo si fudud oo ku xalin karo. marka iyada naftirkeeda waxay soo hoosgelaysaa waxyaabaha perception-ka la dhahayo, ama qofka kow aragtida soo wax u arkay, yani see u aragtay waxaan badan. horta haddii negative thought-ka waxay daa ka soo hadlaya negative thought-ka oo kugu badan yahay, waxaa aad u badanayso in mar walba barbaleemka uu kula noqdo barbaleem aad u weyn. barbaleemka markuu kula weynaadana fikirka waxaa weynaana ama u badana see ku xalin kartaa barbaleemkan, ama dhibkan kugu dhacay see ku xalin kartaa. mararka qaar marka nolosha waxay ku tusaysaa hal dhib inaa isku daydid inaa xalisid, fikirka oo ku keen dhibkaas inuu barbaleemyo kale oo noloshaada ku saabsan kaa qaldo ama kugu socdo ama uu ku fahamsiin waayo laman marka dambe abaan ood gaartid. markaa dhahayo nolosha iyo psychology-ga, yani ama psychology waxyaabaha ku fududeyna waxay tahay inaad nolosha fahamtid, wixii aa soo sheegay dhanaa soo hoosgalaya. alxamdulillah ilaahana wada abuurtay, noloshaan ilaaha wato, laakiin saasay tahay ilaahay maskax iyo caqli iyo qaabaa u xisaabtano iyo qaabaa wax u diidno iyo qaabaa isku hormarin oo adduunyadeena aakhiradeena u shaqaysano oo qof walba si gooni ah oo u siiya. marka noloshaan markaa ka hadlay ama psychology markay tahay inta baaxad aa soo sheegay, waxaa kaloo la sii xiriirto maxay kugu sababi karaa mujtamaca aa la nooshahay, muxuu ku siin karaa nafsiyan. ma ahan markasta psychology markaa ka hadlaya waxaa ka hadlaya cuntana ma ahan, biyana ma aha, dharaa xiranaysidna ma aha, ruux ahaantaada saa u koraysid waa iyo ruux ahaantaada fikirkaaga wax walba ay noqoto. marka
محو مجتمع كسين كرا مجتمع كنا شاي محو كسين كرا محو كوجو ساعد كرا محو لبعته كوجين كرا إذا وحواي برنامج كالأوسجن سايكولوجي سوهوس جلايو marka waxaas dhan yani luuqyadaas dhan inaa fahamtid maybe inay waqti qaadato laakiin mar walba markaa sii fahamtid waxaa kuu fududaanayso in la dhaqankoodii aa fahamtid ama saa ula xiriiri lahayd aa fahamtid laakiin maanta haddaadan ogeyn meel lagaa haysto yani ma ogid wax ku haysta inay negative tahay ama ma ogid burn out inuu ku haysto ama ma ogid saameyn bulshada kaaga imaad inay ku haysato amaba ogidba xanuun nafsi inuu ku hayo amaba ogidba inay wax psychology la dhahayo oo jiro oo ku hayo marka waxaas dhana waxay ku keenay awaansho la'aantaas in ay ku sii sababto inaa problem ku sii socotid inaa problem ku sii dhex jirtid marka waxyaabahan dhan in la fahmo insha Allah waa isku dayayaa intii tabarteyda in wixii kala qaadi karo ama dhinacyada aan u bixin karo maalinba mawduuc gooni ah inaan ka soo hadlo oo waxa idinka fahamsiin karo idinka fahamsiiyo haduu Ilaahay yiraahdo intuu Ilaahay ani iga fahamsiiyo yani ilaa ay xadku Ilaahay siiyay inaa idin la qaybsado haduu Ilaahay yiraahdo waxaan dhan mar kale aad idinku soo celi waxay idin tarayso ama waxay faa'iideynayso waxay tahay waxa ku sahlanaanayo inaad noloshii la qabsatid inaad noloshii aqbashid inaad noloshii la dagaalantid adigoo caafimaad qabtid nabad qabtid faraxsan waxyaabaha qaarna fahmaysid meesha ka soo galan iyo meesha u socdaan aad uma santiin dhageysigiina waa ku faraxsan inaan mar kale idin soo hor fadhiistay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh